kusoo dhawaada Bishaara Media waxa maalintii dhowriyo soddonaad qiyaastii talaagada ku jira meydka askari kamid ah ciidamada qaranka Soomaaliland oo u dhintay dhaawac uu kusoo dhaawacmay isagoo jooga gobolada bariga ee Soomaaliland askarigan waxa uu ka soo jeedaa beesha sida gaarka ugu dulman Soomaaliland iyo ciidamadaba ee habar jeclo dhawaan waxa daawateen muuqaal uu ka hadlayay boqor Mustafa Cali Xuseen oo arintaasi dhacdada xanuunka badan loo kaga hadlayay sideedabana askarigu marka uu ku geeriyoodo hawlgal ciidan oo tusaale ahaan gaariga ciidanka qaranka hawlgal ku jira uu la dhaco waxa aasa bixiyana kharashkiisa iyo marka hawlgalka iyo magtaaba dawladda laakiin arintaasi maanta ma dhicin waana dulmi cad oo marxuunkaasi runtii lagu la kacay dhawaan waxa u tagay taliyaha ciidamada qaranku ay taladiisa ku jabeen Nuuxtaani mid kamid ah xildhibaanada oo isku deegaan yihiin marxuunkaasi Allahu naxariistay dhintay xildhibaan Abubakar jaamac Abubakar Dube xildhibaan jaamac Abubakar Dube marka taani markuu ka soo diiday inuu marxuunkii la aaso warqadina uu saxiixay maxamed kaahi wasiirka arrimaha gudaha uu tagay sidii ayuu warqada ugu saxiixay madaxweyne Muuse Biixi ayuu la galay warqadii uu maxamed kaahin ogolaaday in ay xukuumaddu bixiso aaska amartay la aaso marxuunka xildhibaan Dube uu ka soo saxiixay hortiisa waxa uu ku jeexjeexay Muuse Biixi waxaanu diiday inuu amro aaskaasi oo uu bixiyo waxaanu yiri aaskiisa iyo xuquuqdii uu lahaa askarigaasi midna qaranku ma bixinayo si gaar ah moodaa in ay beesha habar jeclo ay ugu dulman tahay qaranka iyo ciidamada qaranka intaba waxaad hadii jeer maqashaan iyadoo la yiraahdo falsafada tiraahda ay Soomaaliland aadka xukuumaddan hadda u adeegsatay tiraahdo sir ciidan marka laba mid baan doonayaa inaan arintan ku daro oo waa maxay sir ciidan maxaa laga dhaxlay sir ciidan سيدان فلسفة laga dhigtay Soomaaliland xukuumadan hadda ka dhigatay waxa weeyaan dulmiga tacadiga isku dul noolaanshaha iyo xuquuq doodsiga iyo dhibaataynta ciidanka in laga dhigto sir ciidan in la yiraahdo kala dhibaateeyo hadii loo hadlo waa sir ciidan kala iska xiro kala jirdilo kala dhibaateeyo ka darajada sida khaldan looga qaado musuqa baahsan meesha kaliya ee musuqa iyo dhibaatada iyo tacadiga wuxuu Soomaaliland ka dhacaa gudaha ciidamada qaranka inay arrintan noqoto mid aan ka hadli karin baarlamaanka Soomaaliland hadii sidadan miisaaniyada ciidamada qaranka ka hadla la yiraahdo waa sir ciidan ayaa noqotay sir ciidanna waynu garanaynaa oo adduunku waxa uu yaqaanayeen waxaanu naqaanaba waa hawlgallada ciidanka iyo xilliga ay hawlgalladooda fulinayaan iyo waxyaabaha ay sameeyaan taasina ma aha inay markeeda horeba shacabka soo gaadho inay gudbiyaan shacabka waxa ka horeeyay inay soo gaadhana ma aha marka maxaa laga dhaxlay sidii loo lahaa lama taaban karo waa sir ciidan ee dulmigaasi uu halka waxa laga dhaxlay in musuq baahsan oo ciidanka ka dhaco waxa laga dhaxlay waxa hadda maanta ciidamada qaranku ay ku sugan yihiin oo ahayd ta ugu horeysaba in 15,000 oo askari oo qornaa oo taani mushahar ugu xaadir jiray ku qaadan jiray maalintii dagaalka la saacanood uu bilaabmay in 7,000 wax ka yar ay ka soo hadheen oo 8,000 ay noqotay ciidan caaglayaal oo caaglayaal waxa la yiraahdaa Soomaaliland gudaheeda iyagoo ciidanku aanay shaqayninba mushahar lagu qaadan jiray oo fashilkii ka dhacay ayna ogeyn 7,000 ee soo hadhay inay noqotay in hawlgab ay inaan shaqayn kareenin oo tiro aad u yar ay noqotay ciidanka kaliya hawlgali kara taas ayaa laga dhaxlay sidii loo lahaa lama hadli karo baarlamaanku miisaaniyadooda ma faragelin karo ciidamo soo hadal qaadi karto waa sir ciidan musuqa heerka gaadhay ee qaan gaadhay ayaa laga dhaxlay dabadeedna ay noqoto in ciidankii halkaas imika iyo abaabul kow iyo hadda ah in la galo ay noqotay waxa laga dhaxlay oo sir ciidan weeyaan sidii loo lahaa laga dhaxlay in ciidankii uu musuq iyo niyad jab baahsan uu ku dhaco in darajayntii ciidanka la arko mid 9kii ciidamada qaranka kamid ah oo ilaa hadda garba maran iyo mid shalay toole la qoray oo garaada lagu taxayo ruqsayn qaar la iska ruqsaynayo qaar la dhibaataynayo qaar la jirdilayo qaar la xirayo lagu tacadiyayo wax walba gunooyinkoodii iyo waxyaabaha ay ciidanka qaranku ay lahaayeen dhamaantood bal la leexsado ama cid gaar si gaar ah ay ugu takriifasho ayaa laga dhaxlay wax laga dhaxlay in kooda dhibaataysan hadii la yiraahdo dowladda la yiraahdo waa sir ciidan marka horta sirta ciidanka inta gaarka ah sida gaarka u doonaysa inay ciidamada dhibaatadooda aan laga hadal iyo dibka iyo dulmiga ku dhacaya ayaa ku maxaabsato ama si gaar ah ugu shaqeysata falsafada tiraahdo waa sir ciidan
ayaan darre ka weyni ma jirto maanta in askari ciidanka qaranka howlgalkiisa ku dhaawacmay. markii hore ciidanka askarigani allah u naxariistay waxa uu ku soo dhaawacmay jiida isagoo howlgal ku jira, uu soo noqday dhakhtar buu galay, wuu ladnaaday, dib baa loogu celiyay howlgalkii, waxaa la dhacay baabuur, dhaawacii baanu Hargeysa ugu guriyay. imika haddii aad tagtay dhakhtarka magaalada Hargeysa waa ku jira meydkiisa talaagada, xildhibaanadiisa salaadiintiisa boqor Mustafa Cali Xuseen ee hadlayay, xildhibaan Dube dhammaantoodba haddaad la xidhiidhaan waad ka heli kartaan xogta iyo macluumaadka iyo eheladiisaba. allah u naxariistay welina lama aasin, xuquuqdiisina taliyahaas aan idiin sheegayo iyo muusaba waa ay diideen. waana maalin kaloo madow baan odhan karaa runtii ay ku tahayna ciidamada qaranka iyo eheladii iyo beeshii habar jecle uu marxuumkaasi kasoo jeedayba. xoga fara badan oo kale ayaan idiin hayaan maalinta berri idin la wadaagi doonaa. nabadgelyo.